Asalaamu calaykum dhamaantiin waa idin salaam akhyaarta ku xiran janalkayga daryeelka jirka waa aniyo Safiya waxaa idin leeyahay seetiin xaaladiina fiicantiin alxamdulillaah aniga aad iyo aad aan u fiicanahay maasha Allah maanta waxaa idin wadaa faa'iido cusub video cusub oo tinta ku saabsan maasha Allah tintane waa ogtihiin ayaanta ani mar badanaa tinta wax ku saabsan ma soo geliyo marka hadda waxaan jeclaystay tinta inaan idin la wadaago biyo tinta la marsanayo oo ah biyaha dhageeraha waa taqaaniin oo shaaha lagu darsado aad iyo aad u fiican yahay badanaana dadku way ka hadlaan inuu tinta u fiican yahay oo tinta jilciyo oo maxaa la dhahaye tintana awood u yeelo jirida maxaa la dhahaye tintana oo dheereeyo wuxuu caan ku yahay tinta inuu dheereeyo soo gabarey haddaad rabtid tintaada inaad dheereysid video adoo ku anfaca haddaad rabin tintaada wax ku saabsan inaad maqashidna marka video ma ku anfacayso tinta dadka jecel inay dheereeyaan ee qurxiyaan ee kaaliska arag ka dhigaan kaliya video loogu talagalay marka insha Allah daawasho wacan waa isla sameynaynaa faa'iidadan mana u baahno waxyaabo badan kaliya waxa u baahan tahay dhageero iyo biyo bas intaas le waa wax kale oo la isku dardarayo wax kale oo la sameynayo ma jirto marka hadda saa ujeediin dhageeriyaan soo qaaday dhageeraha qiyaas adiga 2 qaando camal la iska rabaa aniga hadda videoga wax yar aan ku shubay laakiin gadaal insha Allah ugu dari doonaa biyahani waxa u baahan tahay bakeeri biyo soo ani waxa hadda ku darooyo gadaal aan u shubi doonaa waxyaabaha kale dhageeraha 2 qaandada cuntada lagu cuno u baahan tahay bakeeri biyana u baahan tahay insha Allah haddaad rabtidna dhageeraha ku darsan kartaa mushkilad male problem male ugu dambeyn aslan asiga ma u baahni waxa u baahan tahay kaliya biyihiisa u baahan tahay marka gabdho wallaahi waxa ku dhahay dadka si u amaanayaan ma maleey kartid dad badan ayaa ka faa'iideen marka anna waxaan jeclaystay inaan idinkiina la shargareeyo faa'iidada iyo waxyaabaha fiican insha Allah haddii aad tahay qof janalkan ku xiran oo haddana tijaabiye dhageeraha insha Allah video aad aragtid commentiga noogu soo qor bal waxa ka faa'iiday aragnay insha Allah markaad soo jeedin waxa u baahan tahay digsi alaabtan karkaris u baahan tahay dab loo baahan yahay marka dabkiyaan ku shiiday insha Allah dhageerihi iyo biyaha waa lagu shubaa insha Allah marka waxaa lagu dhahay inay karkarto waaye markay karkaraan biyaha markay zaaid u karkaraan dabka ka gaabinaysaa markaas waxaa sameynaysaa dabka markaa ka gaabisid wax yar aad sugaysaa dabka hore kama diminaysid waa u gaabinee wax yar oo biyaha karkaraan oo laakiin dab gaabsan dabka dheerka bilaawi hore leh ha ahaado marka insha Allah saasay marka faa'iidadana u galaysaa biyaha marka waxaa isticmaalkeeda haddaan sheego waxaa isticmaali kartaa maalin kasto soo hadda anani tusaale caaga ku shubanaysaa caagaas maalin kasta tinta ku buufsan kartaa haddii aad awoodid haddii kalena maalin dhaaf ah ku buufsan kartaa maalin waa ku buufsane maalin waa iska day kartaa marka faa'iidadan waxaa helaysaa bil kadib tintaada isbedel aa ku arkaysaa laakiin waa inaad isticmaashid sida saxda oo loo isticmaalo maalin dhaaf ama maalin laakiin dadka asbuuci hal mar ku buufina tinta ma soconayso maano marka gabdho mar walba aan sheegaa wax walba dabiici ah waxay u baahan tahay inaad ku socotid jadwal oo markasta waqtigeeda maanta dhaaftid beri inaad sameysid sidoo kale inaad u sabartid waa loo baahan yahay waqtiga qaadanaysaa marka hadda alaabtan maalin dhaaf loo marsanaa haddii la awoodo haddii aan la awoodin haddii kalena mahno haddaaba maasha Allah aad tahay waxaa marsanaysaa maalin kasto insha Allah faa'iidadana bil kadib kaaliska arag tintaada waa laga sheekeynaa hoos ka soo baxaysa meelihii banaana dhan waxay noqonayaan madow geesaha iyo maxaa bidaarta iyo wax dhan waa soo baxayaan kaaliska arag noqonaysa insha Allah marka gabdho janalkan waxaa waaye horta maasha Allah subscribe-kiisa wuu socdaa aniga janalka jiifo wax yar oo marna soo gelinaa marna ayaan waa ku kacaa iska joojinaa marka laakiin like tab gabdho maxaa waaye waxaan wala fiirsanaa video like ma la saaraa horaa loo sii soconaa waxaas macquul ma ahan
insha Allah waxaan rajeynaa inaad like ii saartiin waa idinla kaftamooyaa marka insha Allah haddaa ka heshid video like saar haddaa ka helinne marka sheekadaas qasab ma jirto marka waxaa idin rajeynaa inaad ka faa'iidi doontiin insha Allah oo haddaa hore u tijaabisidne waa ka balanay inaanu soo qortid commenti haddaa had kadibna aad tijaabinaysid insha Allah haddaa ka faa'iidid waxaa kaaga baahanaa bas insha Allah inaad ii soo duceysid inuu ilaahay muraadkeena iyo muraad muslimiin sahlo marka insha Allah had soo jeedin gabdho dabka waa soo karkara biyihii kadibna waa ka gaabinaa wax yar waxaan rabaa inay si dabkii gaaban wax yar haddana inay biyihii ay ku dhex jiraan marka insha Allah wax badan ma kaaga baahno kaliya dabka aa ku daaraysaa markay karkartana waa diminaysaa ma diminaysa waa gaabinaysaa kadibna ka dibinay cabaar ilaa 2 daqiiqo camal ku daynay biyaha oo gaabsan dabku gaabsan marka maasha Allah hadda wallahi sameyska aan sameeyno carafta kaaliska arag aan ku dhameesho was qabsatay marka alaabtan waxay ku fiican tahay gabdho muu baahnid tinta inaad iska dhaqdid caadiyan anaga tinta marka wax marsan oo nafaqo ama wax oo tinta u roon dhaqo weyna rabtaa laakiin kan muu baahnid inaad dhaqdid waa ku buufinaysaa waa ku buufsanaysaa le horaan u soconaysaa muu baahnid inaad dhaqdid tintaada sababtoo ah maasha Allah asiga waaba carfaaba ma aha wax oo shiiraayo ama wax dhibaato keenayo tintane in laga dhaqo maba ahanba in lagu daayo waa insha Allah oo aad sideeda ku haysatid tintaada marka ku buufisid kadib oo aad kaligiis ku qalalo hadda marka waxaa u baahanahay caano miirka caadiga ah waxaa rabaa insha Allah inaan dhageeraha ka miiro biyaha dhageeraha uma baahnid waxaa u baahantahay kaliya biyaha kaliya u baahantahay insha Allah marka hadda biyaha ka bixinaya waxaan ku dhageeraha iska reebaa marka wakaas soo diyaariyay way kulul yihiin marka waxaan sugaa insha Allah ay ka qaboobaan markay qaboobaanne waxaan u soo diyaarsanaa caaga aan ku shubi lahay oo maxaa lahaay oo tinta markaas aan u isticmaali lahay marka gabdho markaas aan u sameysid isla markii ma isticmaalaysid waxaa sameynaysaa biyaha markaa ku shubtid caaga tinta ku buufsan lahayd waa iska dhigaysaa wax iska aalay dhowr saacadood haddaa galab sameysid ilaa ay subaxii ha iska aasho subaxii markaas waa isticmaali kartaa lacal haddaad subax sameysatidne ilaa cawadii haska yani adi dhowr 10 saacadood iska dhaaf ilaa 12 ilaa 15 saacadood dhalada haska xirnaad kaligeeda iska ahaato hataa taabanin markaas kadib la insha Allah isticmaal horaha ka isticmaalin marka aniga caagan haystaa adiga caagag waxaa jiro la soo gato waxyaabaha in lagu shubto darteeda la soo gato ani laakiin kan waa caag oo saliid ka dhamaada saliid oo tinta loo marsado oo ka dhamaada caagan soo caagan ma ahan waxaan ugu talagalay laakiin waa isticmaali karaa caadi waaye waa caag caadi ah oo la buufin karo tinta saliida ka dhamaata marka biyaan ku shubanaa hadda biyaha caagana ku shubanaa kadibna tinta ku buufsanaysaa insha Allah adina ay caag guriga ku yaalo raadso hadda ku aalin waa la gadaa dukaamanka lagu gadaa caagtan eco oo faadi ah oo loogu talagalay marka insha Allah meesha ku shubaa waan isla wadaagi doonaa faa'iidadii waxa dhan insha Allah waxaan rajeynaa video ana ka hesheen haddii aad ka hesheen videogan ha hilmaamin like-ta channelkayga subscribe ii saar haddaa ii saarin haddaa hore u joogi jirtine waa mahadsan tahay asxaabtaada iyo dadka jeceshahay nala share garee video ku xigna nabad ku wada gaarnay insha Allah waa mahadsantiin dhamaantiin waxaa idin rajeynaa khair insha Allah waxaa idin leeyahay maca salaamo